بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيها تقوم الساعة، وفيها ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. ilaahay baan ku mahadinaynaa walaalayaal. salaada casar yowm aljumca waliba ilaahayna soo kulansiiyey masaajidkan jaamica, allahaasaan ku mahadinaynaa. insha allah waxaan rajaynaynaa saacaddaas inay tahay saacat alijaaba, saacaddii ducada la aqbalayay ee qabuuliyadda lahayd in ilaahay nooga yeelo oo ilaahay camalkeenna uu ka yeelo ikhlaas. insha allah dhahda anigana ka hadalkayga diintaan ka hadlaayo inuu ilaahay ikhlaas iga yeelo, maxaa yeele camalka ikhlaaska unbaa ilaahay aqbalaa. innakana dhegaysiga aad dhegaysanaysaan aad soo ajiibteen ilaahay kalaamkiisa, ilaahay inuu nooga dhigo ikhlaas. maalmaheenna inagu soo noqnoqonaya ee 7 maalmood ah ayuu nabigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay tahay maalinta ugu fadli badan maalinta jumcada. ummadihii naga horeeyana ummad walba maalin baa loo doortay oo ay shaqada adduunyada ay ka nasanayeen oo cibaadada ay badsan jireen. nasaaraduna axadda ayay lahaayeen, yahuuduna sabtiday lahaayeen, laakiin innaka ka muslim ahaan ilaahay jalla wacalaa waxau noo doortay yowm aljumca waa sayid alayaam, waana maalinta maalmaheenna ugu fadli badan weeyaan. uu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa uu ku yidhi maalmihiinaasi maalinta ugu fadli badan buu nebigu yihi waa jumcada. maalinta jumcadu maalmaha kale waxay kaga fadli badan tahay waa 5 khasladood. khaslada koobaad wuxuu nebigu sheegay inay tahay maalinkaasi maalinkii nebi aadan la abuuray calayhi salaam. yowm aljumca nebi aadan la abuuray calayhi salaam. khalaa'iqda abuurkoodana asaga ugu dambeeyaaba la yidhi, oo samada abuurkeeda ayaa ka horeeyey, arlada abuurkeeda ayaa horeeyey, buuraha abuurkooda ayaa horeeyey, jamaadaadka iyo dhirtan adduunyada ku taalla iyo wixii geed bini aadamku ay manafacsadaan oo dhan ayaa ka horeysay aadam abuurkiisa. maxaa yeele bini aadamku baahi fara badan buu leeyahay. baahidiisii markii adduunka loogu dhammaystiray wuxuu u baahnaay oo dhan, dhulkii, cirkii, cadceeddii, biyihii, dhirtii, khudaartii, xayawaankii, bahaayimkii, hawadii, xaajaadkiisii oo dhan markii la abuuray ayaa nebi aadan la abuuray calayhi salaam yowm aljumca. jumco ayaa gelinkii dambe ruuxda lagu afuufay. khaslada labaad ee jumcadu maalmaha kaga fadli badan tahay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, maalin jumcana waa la geliyey jannada. jannadaasi culimmadu qaar waxay dhahdaan ma jannat alkhuldi ba, mise janno waxay ahayd nebi aadam calayhi salaam keligii loogu talagalay oo isagoon lagu ikhtibaarayay. qole waxay dhahdaan waa janno isaga uun lagu ikhtibaarayo isaga gaar u ahayd.
waayo jannatul khuldi hadday tahay bay culimmada qaar leeyihiin jannatul khuldi haddii mar la galo lagama soo baxa bay leeyihiin laa yamasuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahlaljannuhu jannada haddii ay galaan jannada ay galeen dhexdeeda wax tacaba oo ku soo gaadhaya ma jirta baa ilaahay yidhi kuwa jannada ka soo baxana maahin baa ilaahay yidhi allah ina geliya jannadaas marka culimmada qaar waxay leeyihiin janno beenbeena ma jirtee jannadu taasay ahayd baartii runtay ahayd walaakiin ilaahay waa siduu doona yeela weeyaanoo aadam jannada baa lagu dhex ikhtibaaray haluma jar midkee dooniba ha noqoto jannadaasi qur-aanku waxa uu noo cadaynayaa in jannada nebi aadan lagaga soo saaray gaf uu jannada dhexdeeda uu ku galay ee ahaa walaa taqrabaa haadihi shajara fatakuuna min aldaalimiin baa ilaahay ku yidhi jannada ha u dhowaanina adiyo xaaskaadu haddaad geedkaa u dhowaataanna baa lagu yidhi geedkaa haddaad u dhowaataan geedkaa jannada aan niiga digna inaad ku dhex cuntaan haddaad u dhowaataan kuwa daalimiintaee naftooda dulmiyey baad ka mid noqonaysaan baa ilaahay ku yidhi marka nebi aadam calayhi salaam maalin jumca ayaa la abuuray maalin jumcaana jannada waa la geliyey maalin jumcaana jannada waa laga soo saaray oo arlada ayaa la keenay maalin jumcana saacadda qiyaamada dhici doonta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin jumce xataa subax jimce ayay cadceedu ka soo noqon doontaan maaragtaane xagga maqribka ka soo noqoni doontaa lidaalika xayawaanka oo dhan galabta khamiiseed marka cadceedu ay sii dhacaysa baa la yidhi habeenkaa cabsi ayay ku baryaan cabsi ayagoo ka cabsi qaba waa berigaa dambe inay noqon karta maaragtaane maalinta saacadda qiyaamadu ay dhacaysay iyagoo ka cabsi qaba inay tahay maalinkaasi maalinka qiyaamadu ay dhacaysay laakiin labada culculus buu nebigu yidhi warka ayagu ma hayaan waa jin iyo insigu labada kama warqabaa maba waraystaanba bal wadannada qaarkood macaasida ugu badan habeenkaa jimcahay sameeyaan dadka dowladaha islaamka maadaama maalin jumca ay fadhiyaan habeenkaa khamiista gelinkaa dambe khamiista habeennimadeeda fasaad baaba loo dareeraa wadannada carbeed iyo wadannada islaamka halka bahaayimka oo dhan habeenka cabsi ay ku seexanayaan iyagoo ka cabsi qaba waa berigaa dambe baryi doona inay suuragal noqon doonto maalintii suurta la afuufaayey ama maalintii cadceedu ay ka soo noqonaysay meeshay ka dhacdee toobaddu ay xidhmaysay marka yowm aljumca saacaddii qiyaamadu dhici doontaa waxaa kaloo maalintaa jumcada ku jirta buu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi maalintaa jumcada buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam saacad waxaa ku jirta saacad ducada la aqbalo oo qof muumina ma istaago oo saacadda ma waafaqo oo ilaahay casa wajalla ma weydiisto amar khayr u leh adduunyadiisa iyo aakhiradiisa ilaa waa la siiyaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa la siin xadiista qaar waxay sheegaysaa waa xilligan bacd alcasarka ilaa cadceedu ay godka galayso marka maalinta jumcada waa ciidul usbuuc baa la yidhaayo dadka muslimiinta xataa waxaa shaqada adduunyada intay ka nastaan baa loogu talagalay inay maalinka iska cibaadaystaan oo qur-aanka ay akhriyaan oo salliga nebiga sal alla alay wasalam ay badiyaan oo maalinta jumcada nebigu waa kii lahaa salligayga badiya salligaad aniga igu sallidaan buu nebigu yidhi meel kastaba jooga oo salaantaasi way soo gaadhaa buu rasuulku yidhi oo malaa'igta ayaa nebiga u soo naqlinaysa baa layidhi malagga malaa'igtan inala socotay acmaasheenna qoraysa ayaa maalinta jumcada haddaad salliga nebiga badaysid calayhi salaatu wasalaam salliga nebiga intaad ku salliday ayay malaa'igtu qaadayaanoo nebigay u geynayaan saxaabigii xadiiska maqlaya wuxuu yidhi oo nebi allow sidee maaragtaane aad u maqlaysaa maaragtaane salaantayada iyo salligayaga ciiddaaba ku cuntee markaa buu nebigu yidhi ambiyada jidhkooda inay ciiddu ay cunto ilaahay waa ka xarimay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صدح قف sidii ciidda loo dhex dhigay bay u dhex fadhiyaan baa la yidhi jirkooda carra ma taabanayso shahiid ninka gaal gacantii ku dhintay
waa sidii qabriga loo dhex dhigay baa la yidhi waliba dhiiggiisii oo qoyan oo calaamadii dhiigga ay ka muuqato oo maaragtaan laakiin carfigiisu uu yahay miski ayuu banka qiyaama soo bixi doonaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xaafid alqur'aan qur'aanka xambaarsan ee qalbigiisa qur'aanku uu ku jirana ciidu ma cunta baa la yidhi man jaa'ahu almawtu wa huwa yatlubu alcilm ليحيى به الإسلام بينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة ألا وهي درجة النبوة نكرنتبو نبي صلى الله عليه وسلم سوى علم الدين الطالب وطالب العلم نكرنت أسقي النبي الجنة درجة بأول حيسا درجة داسنة ودرجة النبوة برسولك يلي sheekho culimada reer gobolka Bay ayaa bari hore oo dhowr 20 sano ku dhawaad ka hor ayuu nagu yiri aabahay oo 29 sano aasan ayaa loo baahday masaajidku magaalada dhinaceega ayuu ku yaalay dadna waxa loo baahday buu yiri maaragtaanay in masaajidkii la waasiciyo la ballaadhiyo shaayidka dhinaca dambu kaga aasnaa magaalada dhinaceegana uu ahaa masaajidku marka magaaladii baa weynaato hareeraha ka martay masaajidka marka qabriga inuu ku dhex yeelana lama ogolo dadna waxa la yiri waxaan doonaynaa inaad noo idanto maadaama masjidkii aan u baahanahay in la waasiciyo xaafadii dadkii ay bateen in la naqliyo aabaha meydkiisa ama wixii ka hadhay jirkiisa intoo la naqliyo in qaburaha muslimiinta loo geeyo noo idan waa idmay baan ku idhi ana gacanteeda ku faqay buu marka qabriga gacanteeda deedna markaan waxaa dhacday buu yiri sidii maalintii aan ku dhignay waa 29 sano ka hor sidoo ahaa isagoo oo ciidii uun bas kafankii ay ka cuntay ayaan qaadno markaas aan qabuuraha ku darnay buu yiri laana aabahay xafidan likitaabillahi buha mid kalaamka ilaahi azza wa jalla xafidsan oo quraanka xambaarsan buu ahaa buu yiri marka al-anbiya alayhim assalam wa shuhada wa hamalat al-quran baa la yiri saddexda qolo ciida sidii loo dhex dhigay bay u yaalino ciid waxba kama cunto marka maalinta jumcada maxaa maalmaha looga fadalay baa waxa looga fadalay waa shantan khasladood weeyaan nabi aadan baa la abuuray nabi aadan baa jannada la geliyay nabi aadan jannada jumca laga soo saaray maalin jumcana saacada qiyaamada dhici doonta maalinta jumcadana waxa ku jirta saacatul ijaaba buu nabigu laana khalqiga ilaahay isaga kala fadalay maalmihii baa la kala fadalay oo dhulkii baa la kala fadalay dhulkii buqcadaha adduunka ugu khayr badan waa buqcada xaramka ku yaalo way xaramul makki thumma al-madani thumma masjid al-aqsa xaram al-makki buqcada xaramku ku yaalo ee xadul xaramka la yiraahdo waa buqcada adduunka ugu khayr badan bay culimadu yiraahdaan salaada xaramka marka lagu tukadana waa 100,000 oo salaadood 100,000 oo salaadood ba lagu qoray ajarkooda 100,000 oo salaadood waa imsa sana ma taqaanaa waa 5 sanadood iyo 6 bilood iyo 20 habeen baa la yiri hal salaado maka aad ku tukataa waa 5 sanadood iyo 6 bilood iyo 20 habeen qof salaad iyo cibaado ku jira ajarkii baa loo qorayaa sadaqada maka aad ku bixisaa waa inta in leeg weeyaan soonka maka aad ku soontaa waa sidaas la mid weeyaan ama madiinada al-munawwara haram al-madani isaguna xuduud buu leeyahay waa 1 salaadood isagu halka masjid al-aqsa uu yahay 500 salaadood لأن هذا المساجد دي بخير البقاع أقول كان مقالة يمكن ماشي أقول خير بدن ومساجدك أحب البلاد إلى الله النبي يقول المساجد وأبغض البلاد إلى الله الأسواق النبي صلى الله عليه وسلم وكيلها دول كمالها أقول خير بدن إلهي عز وجل أكتس اللوغو جعل يعين أبو النبي يقول ومساجد دول كمالها اللوغو نعب يعين أبو النبي يقول وأسواق دويا مويلي دولكي baa la kala fadlay oo maalmihii baa ilaahay kala fadlay oo bilihii baa ilaahay kala fadlo bisha bilaha ugu khayr badan waa bisha Ramadaan weeyaan maalmaha ugu khayr badan waa 10 dhulxijja weeyaan habeenada habeenka ugu khayr badan Abu Nabi Quraanku sheegay waa Laylatul Qadr weeyaan dadana bani aadankii baa loo kala bani aadankana waa la kala fadlay yaka
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض بايلهيدي والله كلا سريسي بني آدمك فضل الله عز وجل بعضهم على بعض فضل الله الغني على الفقير المسلم على الكافر كمسلم كأيو كفل بدن يهي قالكو كفل بدن يهي غنيكو أيو كفل بدن يهي فقيركو كفل بدن يهي كعافمات قلسي أيو كفل بدن يهي كحنوسمو كفل بدن يهي والله كلا سريسي بني آدمك لأن النبي واكي صحابة كوري ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فقراء مهاجرين ومركي المدينة أسوه هجرودين أي دبات المدينة كلا انت حنون يا قاجو يا درلان يا هويلان أي فقراء مهاجرين انت إسسوء الرسلين بالنبي ويمادين عليه الصلاة والسلام لأن مركب النبي كوري هذين ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم markaa bay yiraahdeen nabi allow nimankii muuminiinta ahaa ee malqabeennadii jannada darajaadkeegii sarsare iyo naciimkeegii muqiimka ahaa iyaka ayaa la tago nooga fadli batay markaa buu nabigu yiri sidee ku dhacday nigaga fadli batay nii sheega waxay yiraahdeen yusalluuna kama nusalli wa yasuumuuna kama nasuum wa yatasaddaquna wala natasaddaqu wa ya'tiquna wala na'tiqu wa yahujjuna wala nahujju waxay yiraahdeen nabi allow xaga salaada waan ka simanahay oo salaadii nama dheero maalqabeennadu xaga soonka waan ka simanahay oo soonkana maalqabeennadu nama dheero laakiin waxayna dheeraanayaan waxa weeyaan jihaadkii bayna dheeraanayaan laana jihaadka dhaqaalaha ayaa lagu baxaa xajkii bayna dheeraanayaan xajka dhaqaala ayaa ku baxa cidqu raqaba adoomaha in la soo gado oo dib loo xoreeyana dheeraadeeno deanako adoon lacagan ku soo gadano dib ugu xoreeyna ma haysano cimradii bayna dheer yihiino dadna cimradii bay ku tagayaan zakadii sadaqadii bay bixinayaan anaguna zakadii sadaqadii waxaan ku bixayno ma haysano yiraahdeen markaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waakii ku yiri afala uallimukum shay'an tasbiquna bihi man ba'dakum tasbiquna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum hada al-ma'ni suha ma inii sheegaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam amal kuwa inaga badiyana aad ku gaadhaan kuwa inaga dambeeyana aad kaga sii badisaan oo san qiyaamahana aysan dhici karin qof inaga fadli badan inuu yimaado ilaa mid sameeyo taadinkuna aad sameeysan oo kala mooyaan markaas saxaabadu yiraahdeen ha noo sheeg waxa uu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam salaada markaad ka baxdaan buu nabigu yiri 3 jeer baad oranaysaan subhanallah 3 jeerna waxaad oranaysaan alxamdulillah 3 jeerna waxaad oranaysaan allahu akbar dadna markaas xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam intay ka qaateen ay aqaladoodii kula noqdeen zamankaasi waxa caado iyaka u ahayd tabliiq risaala wax la yiraahdo intay imaka xadiiska ay maqlaan dadna ay ku amal falaan ay isla markaaba dadka gaarsiin jireen oo manhaj nabawiga ayaa sida dhigaya manhaj rasuul alayhi salatu wasalaam manhaj nabawi fi da'wati ila Allah azza wa jalla wa fi at-ta'lim wa at-ta'allum wa mahay hadda ilmiga nabiga ay ka maqlaan may haysanaynin amalkay ku weeleynayeen dadna markaas ay umada markaaba u sheegayeen Abdullah ibn Umar ibn Mas'ud radiyallahu anhu ayaa oran jiray 10 aayadood markay nabigeena dushiisa ku soo degto maanu dhaafi jirin 10 ka aayadood ilaa aan baranno oo ku amal fallo oo waxayna farayaan la imanno waxay naga reebayaan aan ka reebtoona mooyaane 10 ka aayadood maanu dhaafi jirin buu yiri sida zamankeena maanta dadku aqoonta u ruusanayaan aysan ugu amal falaynin sidaas oo kale ayagu ma hayne in yar bay nabiga ka baran jireen dadna intaas ay ku amal fali jireen in yar نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه يا أورنجري طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون آدابت إسلامك وحان كبر أرغني وحان أغاني دينتك وعمل فلكيغو إنهم كمهم سيها وحوالبا لكن قورمان كبر أرغني دادين دادكي أخلاق لها دادكي دغنك وناكسن لها دادكي دينتك وعمل فلي مركي دينتين نغهر رمادين أيام كبر أرغني نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم بورجل ابن مبارك آداب ير دغن وناكسن أنكو دغنو أيان وقباهي بدن هاي بورجل تابعين
muslimiintu aqoon badan oo yeelano zamanka ka hadalka diintu uu koobnaa laakiin ku dhaqanka diinta ayaa badnaa hadal haynta diintu ma badnayn laakiin maxaa badnaa ya ku dhaqanka badnaa zamankeena ka hadalka badan hadal badan baa naga duubay laakiin inta ku dhaqman ilaahay baa og waxa aan ku hadlaynaa qiyaamaha wala isweydiina ogaada qoladaydan wacaad lagu ibtileeyay inay dadka wax u sheegaan wala na weydiin qolada dhageysa jahal ee dhageysa naga taageertan iyakana wala weydiin qiyaamaha qola qayilaysan maalin dawlad ku qaadno markaas sheekh Xuseen hadda xadiiskaagi baa noo socdo taageerayaashaadan hay gu yiraahdeen warkaas ku yidhi waa khayr horta waa khayr baad dhageysanaysaa oo awal baheesa iyo balaayo kala dhageysanaysaa marba hadaad culimada hadalkooga dhageysanaysaan way fiican tahay laakiin taageerayaasheeda waa inay isbedel keenaan mise inay wax duubtaan u baa isbedel baan u baahanahay نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم ابن مبارك رحمة الله عليه بأونجر عبد الله بن مبارك أدب ير dhaqan diineed oo yar oo kooban oo ku dhaqanaan uga baahi badanahay in badan oo maqallo in badan oo barano lidalika ahdiga nabigeena kaleey salaatu wasalaam ka hadalka diinta uu koobnaa laakiin ku dhaqanka diinta ayaa ballaadhnaa way maqlayeen way ku amal falayeen markaaba dadka walaalahooda u sheegeen iyagu saddexda way wada socdeen barashada diinta iyo ku dhaqanka diinta iyo diinta shaqadeedu saddexda ahdiga nabiga ma kala hadhayn ku dhaqanka inay bartaan waajib sharci ay u arkayeen ka hadda soo islaamada diinta markaaba baranayeen inay diinta ku dhaqmaan oo aayada quraanka ku soo degtay nabiga markaaba ay cilmi ku weelayaana sharci diini ay u arkayeen iyagu inay markaaba umada u sheegaan dadka khayrka si gaarsiiyana sharci diini ay u arkayeen iyagu marka nimankii fuqaradii muhaajiriinta ee nabigeenu kaleey salaatu wasalaam oo xadiiska u sheegay isla markiiba xadiiskii may haysane bal xadiiskii markiiba magaalada Madiina u gaaray aqal walba xadiiskii waa laga sheegay nabigu hadalka buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam sidaas uu yiri deedna markaas arag malqabeenadii xadiiska uu soo gaaray ila wax ka macinaya ma jiree markiiba yakuna adkaartii bay bilaabeen bacda kulli salaa inay laazimaan saddex iyo soddon jeer subhanallah saddex iyo soddon jeer alxamdulillah afar iyo saddex iyo soddon jeer allahu akbar inay yiraahdaan dadna markaasay ku soo noqdeen nabigeena kaleey salaatu wasalaam markaasay yiraahdeen yaa rasuulallah walaalaha ya xadiiska noo sheegtay ayakana xadiiska uu gaadho wali xaqi xoolaha wayna dheer yihiin iyo xaqi dhaqaalaha markaabuu nabigu yiri dalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadl alazim dalika fadlullah ni'mal malu salih lirajul salih baa la yiri maadaama rag wanaagsan oo alla ka cabsi la yihiin de maalkoogi maadaama ilaahay ugu dhawaanayaan oo daacada u adeegsanayaan oo zakada ka bixinayaan oo xashka ay ka tagayaan oo dadka adoomaha la adoonsanayo intay soo gataan ay xor siinayaan xorriyad ugu deeqayaan waa fadli ilaahay oo ilaahay qofku doono siyaabo rasuulku ku yiri saasa zamankii nabigeena sallallahu alayhi wasallam qof walba makaanadiisa loo sheegayay dadkuna waxay ku kala fadli badan yihiin ilaahay dadka deesaga kala fadlay حتى النبي ذا لك لفضل أقوم تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس إلى آخر الآية تلك الرسل رسل شيء الله أصدر بالأولياء أي لك لفضل لك لسريسية رسل
maxaa lagu kala fadilay ibraahim calayhi salaam khulada lagu fadilay oo khaliilur rahmaan baa laga dhigay wattakhadha allah ibraahima khaliila muusa calayhi salaam maxaa lagu fadilay wa kallama allah muusa taklima muhammad calayhi salatu wasalaam maxaa lagu fadilay wa kana fadlullahi calayka cadiima ciise maxaa lagu fadilay ruuxda ilaahay ba azza wa jalla laga abuuray isaga bila aabo markaasa معجزات وحا لسيه خوارق العادات بشرك وحي يقانين وكلا دلاعينيس بشر عقلك بني آدمك وحو يقانين وح كدون وعقلك بني آدمك دنبا جاحيسا معجزات عين كاس النبي عيسى إلهي قعميسا وكسو الظاهرية marka anbiyadii baa lagu leeyahay waa la kala fadlayba dhulkii baa la kala fadlay oo maalmihii baa la kala fadlay oo diinihii baa la kala fadlay oo afdalud diin diintan islaamku waa min afdalil adyan law kana Musa hayyan lama wasa'ahu illa ittiba'i nabiga wakiilha sallallahu alayhi wasallam maalintu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu nin yahuudi ayuu ka soo qaaday warqad kalimaat tawraat kamida ayuu ka soo qaaday marka abu nabiga uu la yimid uu ku yiri nabi allah ma kugu dul akhriya kalimaadkaas tawraat ayaa ninka yahuudiga ka soo qaaday bal ha eegtide wajigi nabigeena kaleey salaatu wasalaam ayaa isbadilay deedna marka abu nabigu sallallahu alayhi wasallam ayuu yiri ya Musa ya Umar kaliya ma ahna nabigu hadal khitaab caama oo ilaa qiyaamaha usul inoo abu nabigu noo jeediyo wuxuu yiri anoo maanta nool adduunyada jooga oo dhaxdiina ku sugan haduu nabi Muuse iman lahaa oo aniga iga tagi lahaydeen oo nabi Muuse raaci lahaydeen waad halowdeen buu nabigu waad lunteen oo dariiqi xaq waad ka weecateen law kana Muuse hayyan lama wasa'ahu illa tibaa'i haduu nabi Muuse noolaan lahaa buu rasuulku yiri wada kala ma qaadana wadadeedaas soo qaadi lahaa buu rasuulku yiri جميع الأنبياء والمرسلين نبي كستو أدون كان إيمانيي انتو سن إيماني الرسالة أن لو سو ديبين أيا رب العالمين كبالا كقادو لغو يري أدقو كتابا كو ديبني وشريعة دانا أن كو إذني حدي نبي محمد وأدوية دي ما دادو جوغا إن الشريعة دي سراعي والنبي نمدي سقيري ودي ساقا كو دبضيين ودريقة دي سآد ماري بلان قادبا إلهي نبي والبا كو يري مركز النبي والبا إلهي يرتي وبلان كو قادو يري وإيقا بلان الله ورتي وحن بلان كو قادايا أنا رسول النبي وشريعة لا يديبي هادو نبي محمد أدون كدوشيدا igu soo gaaro inaan isaga rumeeyno raaci ayaan ballan ku qaadayaa abu nabi walba ilaahay hortiisa ballan ka qaaday marka nabigeena kaleey salaatu wasalaam anbiyada ilaahay soo diray shakhsiga ugu khayr badan ugu fadli badan waa isaga manzilada jannada ugu sarreeysan isaga la siiyo ugu منزلة جنة أقصر رئيسة الوسيلة حديث وكي النبي يقولها عليه الصلاة والسلام أذان كم مركز مقلسان مؤذن كوحو ليه كذا برد هذا أبو النبي يقول لأن أذن كمركم مؤذن كنا معينا أنا جاي يوصل لي وسيلة إلهي يودي وسيلة دوامحي ومنزلة جنة كتها الله النبي يقول أعلى منزلة في الجنة جنة إلهي وأبور ومنزلة أقصر رئيس ويان ودعاء مركب مؤذن كنا سنة إلا قد دعي اللهم رب هذه الدعوة تام صلاة القائمة آت محمد الوسيلة آخر كيكا منزلة جنة أقصر رئيس النبي قلنا إلهي سي وتفضيل إلهي بفضلي قرآن كانوا قرآن وحي كتب سماوية سماده كسو دكتور دان قرآن كأقول شرف بدنا أقول قيمة بدنا وقرآن كأنه أقول الوحي المنزل قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وإلهي واك قرآن كأنه أقول شيء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بينات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون قرآن كاس
كتب السماوية أو دن وكلامك وفضل بدن وقو قرآن كاس وخلاصة الأديان بعلماء الأديان خلاصة الأديان وعلى وحي الشريعة الدين إلى هاي السماء وككيني خلاصة وقرآن كريم كا خلاصة القرآن كنا بالليل وسورة الفاتحة ويان سورة الفاتحة خلاصة يدنا وحويان وإياك نعبد وإياك نستعين قرآن كي لفظي ساك لفضل بدن وقو آية القرآن كأوجوين وآية الكرسي سورة القرآن كأوجوين وسورة الفاتحة سورة الفاتحة أم القرآن خلاصة الأديان والقرآن القرآن كان لقوا سوكوبي إنجيل هذا دون تبع علماء دليه سورة المائدة أخرسه توراة هذا ضبعتين هذا وقاته سورة البقرة كده دون إنجيل هذا ضبعته سورة آل عمران تق زبور هذا دون تنا الأخرسه جزء عمه ولا أخرسه لأن الزبور ودين النبي داود لو سو ديبي موعده بدن كده جزء عمه هنا أحكام بكما هلا أنت بدنه موعده كهلا جزء عمه أبورك إلهي سدو خلقه وأبو ربك ورما سماواتك جنة نارتا آخرة قيامها نكدونا يا ابو النبي يقول ما ركتاني نكدونا يا إنه أركو يوم القيامة كرأي عين ها آخر يبقى ليلة سورة داسي سورة عامة سورة النبأ إذا الشمس كورت هي سورة إذا السماء انفطرت سورة ذاها كويا لجزء عمها وحكى ورميان انتو دبدا وموعده آخرة ذاك حسوسين أيان جنة ذاك برارجين أيان نارتك كأجدجيان يوم القيامة كورميان مالك قيامة سلوك لبيحدونك ورميان زبور دين النبي داود لو سو ديبينا بدن كيغو موعده u badnayd sharaacadu ay ku yareed baa leeyahay marka quraankii baa la kala fadilo lagu leeyahay aayada quraanka ugu weyn waa aayatul kursi dad akhrisato habeenkii markaad seexanayso ilaa waagu ka bariyaayo malag baa saa ku dul fadhinaya ku ilaalinaya malag أبا هريرة رضي الله عنه حديث كي يالله في السنن إن آيات داسي آيات القرآن كأجوين قفك آخرستنا إلهي أقدم عيسى لقى إلى علينا يو شيطان بعلم قابر الشيطان شياطين الجن بابرت علم ما حيد أبا هريرة حديث كديرا والنبي صلى الله عليه وسلم وحل صار أبا هريرة إنه إلاليو زكاة المال كتمرت الله صوق هذا يراشين كبو النبي كود أدقو إلالي وقار كقبو وكحراسة دتك كلام مارك تاني كحراسة أبينك هل كانوا جوجي بيقولون أرك مارك تاني حيوان يمدي أو قرنايا مركزان قبتي قال لأرفعنك إلى رسول الله رسولك إلهي بن كوجين وكوجين لأن مركزه إيه عوضو يقول لي من فقير أو مسكين أو صاحب العيال أو قاجونا يا أيان هي كوكسو نغني ما يهديت ولا مروني سيدا لأنه وسيدا يي واقو مركو بريب النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة حاليت ولك الحدي قعنت كلك تمحوك وقسمي ويا رسول الله وإيش أشكته ذا وحو كعودي إن ما ركتاني أبد أوليه قاجي باهي أوكنتو ونأي بلن قاد إنه ما ركتاني يقصوا نقون دونين مركب النبي يقول وبين على ويان وقصوا نقون دوناي هلكي وفر يسبو كيرو إلالي نبي مركب وحي بقى وشيء هذا habeenkii ay halkii baan u fadhiistay habeen labaad hadana habeen saddexaad ilaa aan ku iraado mar walba wadi dhaarataay oo waxa tiraahdaa ma soo noqonayo hadana waad soo noqotaa beenaala tahay maanta ku deyni maayo nabiga ku geenay kaleey salaatu wasalaam dadna markaas uu ku yiri aayad baan ku baraya kitaabka ilaahay ku taala hadaad aayada aad akhrisatid hadeeto la arki meesad aniga xagga ilaahayna waa laga ilaalin oo xaaris baad helaysaa xagga ilaahay ka ilaaliye maanta aayada iga baro oo dib damana kugu soo noqoni maayo ida لأن آيات القرآن كوشة آية الكرسي مركز أبا هريرة النبي أوتجو وشجع مركب النبي يقول سقوا بين بدنا أي حال الروح كوشة يا أبا هريرة هبين صدق حدا هبين أردن كي القبر نسيت سيد نسيت وهم قرنا يسمى شيطان كي بهاب النبي كقولي
آية الكرسي مركا وآية الحفاظة وأنا مستحب بعد الصلاة والبين الأخرستو وفضائل كيغ النبي قال نو شيغي يدو ايدان اديغا كو ilaalinaysa salaad ilaa ka salaad lagu ilaalinayo ayuu nabigu ku sheegay fadaa'ilka laga helayo ilaa shaqada adduunyada marka shaqo meel ka qabanayso mushqaayada inta qaadanayso waa in lagu sheegaa hadana lagu sheegin bashaarka aad ka qaadanayso niyad ku shaqeeyni maysid lidalika maadaama salaadii aad ka baxday duhur ilaa salaada casr laga gaadhayo balse ilaahay ku ilaaliyo oo malaa'iktu intay ku timaado ay gaar ka qabato aayatul kursi waa inaad akhrisataa aayatul kursiga fadliga laga helay nabigu noo sheego wuxuu yiri salaada marka uu ka baxo qofka aayada akhriyo nabigu yiri isaga jannada galideeda waxa u dhaxaysa kaliya inta naftu halka ay ka baxayso jannada galideeda maxaa kaaga dhiman naftu intay ka dhacayso marka quraanku waa dawo quraanku waa ilaaj quraanku adoo ku ilaalinaya diintu aday ku ilaalin lacagta adaa ilaaliya oo lacagta bini aadamku u ilaalshada laakiin diintu qofka muuminka iyada ilaalishay ugu qowl Umar wayaan aw Ali المال تحرسه والعلم يحرسك بودي xoolaha adaa ilaalinaya oo meel adag baad ku ridanaysaa oo baananka dhiganaysaa oo meel adag oo dadna ku arkayn baad ku aasaysaa laakiin cilmiga diinta hadaad baratood ku dhaqanto diintu iyada ku ilaalin diintu cimrigaaga ku ilaalin oo dhaqaalahaaga ku ilaalin oo aqligaaga ku ilaalin oo awlaadaada ku ilaalin oo noloshaada adduunyada dhacdhacaya malaayacniga iyo zallaadka noloshaada kaaga ilaalin diintu aday wax ku tari mooyaane adu diintu xuma taraysid diintan in iyada waxay nataraysaa inaka laakiin qaladka inaga dhacay maanta waxa weeyaan wali aan ka soo noqon laanahay in dadka qaar ba u haysa diinteena wax u qabtaan iyagu oo madrasad baan dhisay adaa dhistay maxaad u dhistay adaa dhistay madrasadda iskeed baan dhisay deedo ka waran way fiican tahay laakiin adaa dhistay من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة نك إلهي درتي أقل أدسا مساجد بعد إلهي درتي أدستي هذا إلهي أقل جنة كاغا دسيا مدرسة بعد أدونك إلهي درتي مال وغفرتي هذا إلهي أقل جنة كاغا دسيا قف مسلمات خيرك أبو يدي خيرك أبو يدي أديك كيف يدسني اللقو قريا مسلم بعد صدقات سي مسكينة صدقات أوكوسي قادة وحوالدي آخر أدوسي ديكتي أقوم حوالدها أدونك أنا سوما يا حوالد آخر ما تقنا والزكاة هي صدقة ويان بالمسكين عمالين إنه قاعد وضنوا سوء سكاي أكتاجو بركاكو إلى السعودية والعقها يلعقتي مصوصاري لعقت جبوتنا واحد كجرت العق بربرة شن بقول فرن لو بقول يكونتم فرن شن بقول مركا تقريبا والله $1 يبد برتا كلا لبعضنا وحويان $1 يبد برتا صدحنا وحويان $1 تقريبا وثلثي برقول العقد وصو صاري بو تي او يريد بو يحسيسد marka kii miskiinkuna wuxuu yiri war xawaaladii aakhiraan ahayd tabadan isii wada ku sii qaaday ila masaakiinta laftigoogu bariyaan iyaguna farsamadii bay la fahmeen waqti إن بخلاء نقولنا بفهمين فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء إلهي بقرآن كل شيء الزكاة هذا لبح ويدو وصدقة لبح ويدو ومسكين لدسي وحكود درسن ويدو ودين هذا وحق الشن ويدو إلهي كل يهي هذا نفط هذا خير كلب خيري أقوم إلهي وغني وكد يقطون يهي إلهي أدقى عبادة دينا أمبهنو صلاة دينا أمبهنو زكاة دينا أمبهنو صونكنا أمبهنو علمنا أمبهنو دعوتنا كقيلنا أمبهنو إنك دينت أباهن مويان دينت إنك يدو إنه أمبهنو دينت أذيك إلالين دينت أذيك عزين حسنوا أموالكم بالزكاة داووا مرضاكم بالصدقة استقبلوا بأمواج البلاء بالدعاء طب النبوي يكون شاقي ابن قيم الله نحرسته
balaayooyinka dabayluhu ay wadaan buu nabigu duca kala hortaga buu nabigu xoolihiinana zakada uga dhigay buu nabigu xirsi xidh hadaa dooni xoolahaagu inay ku noqdaan xoolo maxfuud oo ilaalsan oo kobcaya zakada uu ilaali daawu mardaakum bisadaqa kiini niga bukoodana sadaqada ku daweeyay buu nabigu sadaqadaad bixisay kii ka bukay bay ku daweynaysaa zakadaad bixisay xoolahaagiiba darayada kaaga dhabaysaa baryadaad la timiday balaayo soo socota ilaahay kaaga leexinaya marka diintu maaday wax ku taraysaa masaada wax taraya ya diintu aday wax ku taraysaa ogow diintu aday wax ku tari إلهي وغني أسمادي سوحا كمدة الغني الهادي هنونية كواحد يسقع عيد كلامها هداية التوفيق ده النبي محمد بلغ دي دول الأدم هيسن هنونك هداية وافجنتها النبي قال لك ديدي مركو أديركي وقول لك غنية توحيدك كلها أديرك المدى إما قشيق قيامان كو شفاعة القاضي أديرك مركاسا إلهي كلها إنك لا تهدي من أحببت كذا دقوا جعلات ما هذين كرتب النبي قال له صلى الله عليه وسلم هذا عد قف هذين يو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أدرك أبو طالب هذين لها إبراهيم عليه السلام أبيه هذين لها نوح عليه السلام إنك سبوا هذين لها أنبياء دورنا في رسالة القرآن هادي وإلهي جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم وحو آد قد دالي أديرك أبا طالب نصو إسلام لكن الله ما قدر الهداية ده أدبو أجعل أينو هنون أديركي فتح مكة مركي مكة الله فرطي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبيه أبو قحافة وحربها سعدادين ومدحوا عدادي ودقوا أو قبوبي أو اندلا أيو قعنت انتو سوق قادم النبي أوكينا عليه الصلاة والسلام وأمرك دتك مكة كحري أي بدنكم وذا إسلامي دونان لأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصحابي كلية بالليله إسقي صحابي بوها وبدكيسو أصحاب رسول الله بيهايين أبيه صحابي بو النقضي هو يدي أو لورنجر أم الرمان صحابيات بين نقطي وصحابي كلية لبدي سي ولنا إلهي مسلمين وكدغي وبدكيسنا إلهي وذا إسلام وكدغي أبيه دقوا قبوبي بقعمه انتو سوق قبطو سوق تكبيي مركاسو نبيغا اوكينا عليه الصلاة والسلام نبيغا قريشي صف اجرتو ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا مركابو نبيغو سركعي وايو نبيغو أدبو احترام جرى أبو بكر الصديق وايو أبو بكر وانينك كليا مالنتي قريش نبيغا أي قويسي دقالها أي كقوستي نكي دقاليه سنبيغا الله سمي بوها أي نبي الله دقالها ننوان هايستو sidaad anigu aan u isticmaalo adiguna waad u isticmaali kartaa waxa doonto ka qaado ku yiri maalintii nabiga Makka laga saaray shakhsigii nabiga godka la galay buu haaya la baxay marka nin qiimo weyn Abu Bakar inna markaabu u keenay abihi oo duqa markaabu nabigu ixtiraam Abu Bakar ixtiraamay ayuu yiri duqa ma dalkiisa ku dhaaftida Abu Bakar ana u tagi lahaay oo ka fudude markaabu dhimay ya rasuulallah cilmiga waa loo yimaada adiga waa lagu imane adigu cid u tagi meesad buu ku yiri waa lagu imanaya adiga markuu gacanta u saaray gacantii Abu Quhafa markuu nabigu gacanta u saaray ee tawxiidka uu nabigu u laqinayay Abu Bakar lilma ka daadatay marka nabiga ku yiri calayhi salaatu wassalaam يا أبا بكر ما أنت ومالين فرحة محمد تقول له أويسا يا رسول الله أنا مركان فرحي لها مكوشة وحن فرحي لها حلك أبهاي ما أنت أوجوجو أبو طالب وأذير كايو جوجي لها أدوك فرحي لها يد بنكو فرحي لها أبو كيد مقامك أبو بكر أوجاري بالآجا إنه نبي قرر لك اليوم أبو بكر شخصي لا قاري كره معها حتى شعورتي النبي محمد بعد بودانه بنانك ولا صباح درينك
halka aabbahay maanta uu ka islaamayo uu joogo aabbahay adeerka Aba Taalib oo joogi lahaa oo gacanta ku saari lahaa oo ashahaadan lahaa oo adiguna markaad aragto adeerkaayo ku islaamaya aad farxi lahayd ayaan aniguna farxi lahaa buu ya rasuulullah laakiin ilaahay ma qadarin inuu adeerkii islaame ilaahay wuxuu qadaray bilaal oo xabashiya inuu islaamo salmaan oo farisiya inuu islaamo suhayb oo ruumiya inuu islaamo wahshay oo qaatil hamza oo ninkii nabi maxamed adeerkii dilaya inuu islaamo ilaahay qadaray marka hidaayada ayaa haya orayaha yahanunka ilaahay weydiiso marka qof walba hidaayada ilaahay weydiiso ihdina siratal mustaqim ودعاء ugu qiimo badan ee quraanka ku soo rortay ducadaas ya allah dariiqa mustaqimka nagu hanuuni ki yara ki weyna ki malqabeenki taajirki madaxi mijihi masjidka markaan soo galno ee laba ragcad tukanaynaba baahida kaliyan hor ilaahtiisa hortiisa aan ku sheeganaa waa hidaaya ilaahu dariiqa mustaqimka ay mari dariiqi dushii aad ku way dushooda aad ugu nicmaysaad ka yeeshay al-anbiya nabiyada iyo shuhadada iyo sidiiqiinta iyo sulaxada dadkii aad jecleed waa kuwaase jidka aad marisay ilaahu annaka na mari oo ilaahu hana marin kuwii aad adigu aad u cadhootay waa yahuud iyo kuwii jidka toosan ka lumay ee baadiyoobayna wadaday qaadana ilaahu naga leexi baad ku ducaysanaa maalin walba مسجدك markaad joogtid eedina siraadal mustaqim laakiin banaanka markaan u baxno dhaqankii islaamka kuma dhaqmayne labada aan ka cawdi bilaysanayna dariiqooga in layna mariyo ayaan noloshoodii maanta ku dayanayna oo dhalinyaradeena ku dayanaysa oo gabdhaheena ku dayanayaan oo maaragtaan caroosadii kaga dayanayna oo safarkii kaga dayanayna oo dharqaadashadii kaga dayanayna oo tacliintii kaga dayanayna oo iyaga aan u arkayna inay horumar hayaan bal loomaba arkaba in horumarku u hayo nabi maxamed iyo saxaabadiisu مسجدك دحديده اهدنا الصراط المستقيم خارج المسجد markaan u baxnana cid kale aan ku dayanayna maanta haday dhar qaadasho tahay cid kale aan ku dayanay haday timaxirasho tahayna dad kale aan kaga dayanay haday tarbiyada awlaad noqotana dad kale aan kaga dayanay haday aroos tahayna dad kale aan kaga dayanay haday manhaju tacliim haday tahayna dad kale aan kaga dayanay jaamacad bay ka baxayaan dharkay ku qalin jabinayaan bal sheeg naas weydiiseen dharkay ku qalin jabiyeen ardaydeenu halkuu inaga soo galay yaad ku dayanaysaa diinta islaamka sheegata looma baahna islaamnimada sheegata ku dhaqantaan u baahna cid diinta ku dhaqanta loo baahan yahay maanta ku dhaqanta badan baa sheeganaya qabiilka la sheegtaa laakiin diinta waa lagu dhaqmaa Soomaalidu waa bal cagsi qabiilkay ku dhaqantaa diintana Soomaalidu way sheegataa qabiilka ku dhaqana qabiilka waa ku dhaqana waa u dagaalana dhaqaalaha u bixina waa u ficiltana laabtaan iska garaacna laabta diinta islaamkana waa sheegana boqolkiiba islaam baana جغرافيا بقول بعد قرن تهاي لكن صلاة بقول كيم زاد تقطع قبيل كيناس شيغتay شريعته ku jideysay لتعارفوا لا لتقاتلوا معها ولتعارفوا لكن دين الاسلام كمركay noqotana he لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اتباع الله بحي اتباع sheegata maaha itibaac ku dayasho ku dhaqan waa halka ku kala weecan innaka iyo salafu hadhihi al-umma muslimiinta maanta zamankan adduunyada ku nool ayagoo diinta islaamka haystay daliiliin ee dulaysan yihiin oo ilaahay qeyrkii maanta ay barayaan gacmaha hoos haystaan waayo lana sharcigiina kuma socdaan aqligoogiina kuma socdaan muslimiintu maanta badana aqli dad kale ay leeyihiin ma ku socnaa maanta
markaa bay ku odhanayaan wadaadka waqtiga lama socdo ana baaqi ugu yeeshay boqol maalin dheer waqtiga lama socdo adu aakhiro baad ka hadashaa warkii aakhirada ina dhageysatay diyaar umatiida ka war intuu qalbiga engegay haddii ilaahay lagala hadleen oo aakhiro lagala hadleen oo islaamnimada ku dhaqankeyga lagala hadleen maxaa lagala hadlay markaa quraanku saddexda buu ka warramay dacwat alquraan ba saddexda cadaynaysa quraanku dadka ilaahay xaqiisa ugu yeedhaa quraanku dadka aakhirada ugu yeedhaa quraanku sharciga ilaahay buu kuugu yeedhayaa uu kuleeyahay waxa waa macruuf la kaalaya waxaana waa munkar ka reebto buu quraanku kuleeyahay وانا ماشي اكو كلا دونا انك يا سلف هذه الامه هذا الكابدن هذا الهينتا كهذا الكدينتا ايا زمن كان باتاي لكن كو دقنكي دينتو انت way nagu yaryahay qofku diinta inuu hadal haya oo ka sheekaya diin oo qoon kaliya u baahan tahay laakiin qofku diin inuu ku dhaqmo iimaan bay u baahan tahay qofku inuu diin ka hadla maxay u baahan tahay aqoon cilmi bay u baahan tahay laakiin caalim oo baa ku sheeg kare waxaad sheegaysaa inaad aqoon u yeelataa wax walba sheeg laguma leh inaad dadka diin u sheegtaa oo diin hadalkeega aad uga hadashaa aqoon bay u baahan tahay aqoontuna maskaxday degtaa laakiin diinta inaad ku amal fashaa iimaan bay u baahan tahay iimaan يقين الله نسيه لذلك إيمانكم مركز إن لو دلوا بهياس إيمانك هذا حقيقة دي سهشد إيمانكم وكو إلالين مركع هذا دين تبارته دين تو وكو إلالين هذا دين تكون دقته دين تو يدا كو إلالين هذا دين تدقالها قاد قشست دين تو يدا كو عزين هذا دين تفعلت دين تو كربي كو قادي مدير او كوبن اي النبي محمد صحابتي النبي قال لا جوجين اما دين تدال اي قشدين الى قيامها لو دعين لله اله كرر للنقض اي مسا امه كدنبيسي اصحاب محمد بل واحد هذا شيغا وا كاس dadkii baraahna adduunyada ku soo kordhiyay ciidu ducaynaysa ma maqasheen farmad maqasheen ma jirto diyaaraduhu wala manafacsaday waa muwaasalaad adduunyadii la iskaga talaabay fudaydiyeen taranadu waa la mid gawaaridu waa la mid ittisaalaadku waa la mid laakiin dadka aalaadka baraha sameeyay oo dhan cid taqaano u ducaynaysa waligeed ma aragteen لنبره سيدي التقدم لهايين بكشقيين إلهينا وأفري علم الإنسان ما لم يعلم وعلم إلهي سيئي ويان لما إنكرايو لكن نبي محمد صحابة ديسو وحيكو كشقيين بني آدم سيدي كوهاقاقي لهايين بكشقيين dadka bashariyada dariiq u jeexeen dariiqi qofkan oo adduunkana xaqiisa uu ku heli lahaa aakhirana naar uu kaga badbaadi lahaa bay dadka u horsadeen dariiqa saxda markaas adduunyada waxba uma arkayaan iyagu haday biirtana kuma farxaan haday ku yaraatana kama walwalaan halka zamankeenan maanta haday adduunyadu biirtana qofku uu qooqaya haday adduunyadu ku yaraatana qofku uu murugoonaya maanta haday adduunyadu ku soo badato ilaahay ba ka magan galayeenba saxaabiga Umar ibn Sa'd buha al-Ansari Umar ibn Khattab al-Aqad badri balidi كوفة انتو كسو نقضي أمير أيو يدي وان سو دالي أنكو إن بدنا وان سو شقيي آخر العمر إنه وان كو جرايا هنسك عباديسته يقدف مركز عمر كو يدي مايا أمير المؤمنين وحق هداد يقول لي أنا وان كو أداعي أنا ما أنت احترامه إيقيا لنتا وايه وان كايا ليابو يدي لأنه مركز بقوري سيسكتكي نينبو مركز كدب ضروري العقتها قادو أقيو حداد أركت نينكاسي waayo dhulka uu ka yimid dhul xoolo la ayuha wax lacaga kama keenine waan ka shikisanahay kadaba tago hadaad ninka aqalkiisa markaad gasho adduunyo iyo lacag iyo dhaqaale iyo wax la cunayo fiicfiican dad ku aragto wax lacaga hasiina ii soo noqo buu ku yiri hada
haddaad ka aragto noloshiisu inay tahay nolol adag oo cidhiidhiya oo rafaada oo caynkaas oo gaaja ka muuqatana siibu uu yimiday oo laba cisho martii uu noqday baa la yidhi wuxuu arkay ninkii kimis engegsan khubzi engegsan iyo biyo isku cunaya markaa baa warniyo hanagu ag dhimanine dadka kale naga nolosha fiican martii uu noqdo buu wax kale agteeda ka heli meeside la xooxda engegsan iyo biyaha man cunaaye adiguna nin dayfaatahe calooshaas u ka dhagiyo kari meeside dadka kale u tag buu ku yidhi waa ninka Ciraaq ka soo noqday amiir ayaa shilin lacag aanan haysan madaxda zamankana ee doorta bay ku leeyihiin oo ku dooranay maxaad qaban markaa yaa qalbaan ciyaalka u dhisan buu koodha doorta maxay ka dhigan tahay aan shaqaysto ana shaqaysan weeyaan hadduu mas'uuliyadda uu garanayo wasniga iyo culayska ay leedahay doorta ma yidhaahdeen uu ka baxsan lahaa وبحسن لها لأن النجا ما أنت مسؤول نقضة هبار النبي يدعى النبي لبضع مدو بقادم والنبي قلنا لبضع بكو هذلو يري نكا أمد إذا تلا وقبتها أفضي دين إله أفضي دي السجب والنبي يقولي نجا كوات كين إله سجنا كوات كبر رسولك يري والدعاء النبي يا هبار النبي لبضع حكم الحيان أبو رسول الله حلكو حي هاي بجرنيين عراق ودم بوكسون نقضة أمير شيل العجم ما هيستو مركو نكى وأركن نكى إنه تعبان سنة هنا لعقتي ووسط وصودي بعمر أقول لعقتنا أمير كيوكا صودي بقاضي بوكين عقادو بدن ويان مركا وسنوات دن وكون هلان كرو مركا سودي محاك دقا والله أمير كايدو جي وانا كوكيني أديكو طلع مركاسو إنا لله وإنا إليه راجعون ساسو إنا لله وإنا إليه راجعون islaantiisii oo gadaashiisa fadhida ayaa tiri war ma ameerka muuminiinta ayaa dhimashadiisa lagu soo sheegay ma masiibo ka weyn baa yaa timidey buu ma ciidankii muslimiinta xadka islaamka jooga la soo jabiyo laga adkaaday haddana ma masiibo ka weyn baa dhacday buu oo haddii labada aysan dhicin masiibada ka weyn ee dhacdad ka inna lillahi aysan maxay tahay wuxuu adduunyada oo socota aqalka igu soo gashay si aakhiradeeda ay iga fasaadiso inagu adduunyada ma ku faraxnaa mise waa كأن مصيبة نورقنا مثلا ليلة القدر بنورقنا صحابة رسول الله ذات قلبك وقوة ناكسنا الدنيا مركي أوتي ما عدو وعيوارك دباتنا قلقوا وصوق الشيء حاسكيسونا قبل إلهي كل حدا بيحيد والتقية أو الصالح هذا بيحيد وعيتني وما الدنيا كو سو غشها او maxay waatan bay jiri waatan buu ku yiri kaale xoolaha la soo diray xageen geeya xaan ku qabta xaan ku sameyn karnaa waa kane وعيتني da ka saar aqalka waxay ku yiri da aqalka ina ka saar igu caawi ana kugu caawin bay tiri soo fadhiiso ree fulaan waa agoon inta u gee hooyo u gee islaantaas waa armal oo ninkeygu ka shahiiday hoo inta u gee taas waa miskiinad xoolo ma haysato inta u gee kuwaas waa ducafa way bukaan inta u gee siday lacagtii labadooduba u qaybinayeen baa la yiri habeenkii bila cashay ku soo dhaceen labadoodii hatta waxay ku cashayaan kulama soo harin baa la yiri لأن أوديك إسلام الزمن كا ميل كلي وجدين إنك الزمن كينن ولا كلا جدا هذا إسلام تو آخره وجد أوديك هديه وجدا هذا أوديك آخره وجدين إسلام تهديه وجدا لذلك دشين يدحدك بحن مركع اللي لبده والد هذاك لا فكر نقدان دشوا دحدك بحيان وضيع ميا نسلف قبل ninkeedii ba iyay ku aragtay oo kallahaya markaa bay ku tiro xageed u kallahaday wuxuu yiri dawaano maharadii waxba soo raadin oo kasbi baa noo doondoonaya markaa bay ku tiro ilaahay ka baq ittaqillah ilaahay naga baq bay ku tiro wariya aniga ilmahayga gaajada adduunka waan u adkeysan karaynaa laakiin naarta aakhiro u adkeysan kari mayne luqmad xaraan aqalkayga soo galin bay ku tiri aniga ilmahaygaas gaajada adduunyada waan u adkeysan karaynaa laakiin naarta aakhiro u adkeysan kari mayne luqmad xaraan aqalka hayga soo galin waa zamankii dadku ay wada wanaagsanaayeen mujtamaca raggoogiyo haweenkoogu meel kaliya u jeedeen ilaahay bay ku talagaleen inay la kulmaan aakhiro inay jirtay ku xisaabtamayeen markaa wax walba cunayaal may hayn waxay haayeen dad xalaal marad oo ilaahay ka baqaya bay haayeen dadkaas adduunka dhan baagtooda qiimo lama leh
كسر قلك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أي معاوية أصدر سديتن كن أدرهم بأصدر العقا وين صومن تهي خادم كيجي غلام كيجي بيوي يدي رأي فلان أنت أوجي على فلان أنت أوجي على فلان وأقون أنت أوجي وحي العقتي قيب سبع وحو قبل كودا عيوك بلا أفرع مرقابو كيري يا أمه ما نور ريب خادمة دي باكوتري هو ما نور ريب تدا أفر مرقاس يكوتري دي أظن ما دي شك تدا بيكوتري وانسكيل لو بانوغي وحي نعمد أي هلان ماشي ku xawilanayeen waa aakhirada weeyaan lana waxa aakhira ku hormaray ayaad adigu leedahay waxaad adduunyada kaga tagtay adigu malihida ogow يقول ابن آدم مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت بنبي صلى الله عليه وسلم إن آدم وحولي حولها يجي حولها بنبي مئة كل هذا صدح مدن مو يعني صدح الرماد بعد حولها كل هذا هي وحكى لبا أذوق كملهد عنتات كعنتي أو دماتي يقدر كحرتي أو كجد البالي يوبي يا واحد لب حدو آخرة كاغا سي هريب رسولك صدح داسد حولها كل هذا حولك لكم اللي دونك marka hadan xoogeena aqligeena kartideena aan adduun isku geeyno walaalayaal qofku laba khasaaro ku dhaca laba khasaaraha koobaad wuxuu ku tabcayna adduunyada inuu kaga tagi baa la yiri khasaaraha labaadna baa la yiri aakhirada uu tagay waxba kama horeeyaan لكن مسلم مركو إلهي إنك إنك دقا وإن فضل إلهي دين بو إنسية دين تا إسلام كمركا واحد نقو براروجين سوا معي ورلا بدن إنودا أدقو الله ده هاي إلا دين تا إلا آخرة هذا كو إيجو إلا الدنيا هذا كو إيجو بدين تا إسلام كله ده إلا الدنيا ده كو إيجو إلا آخرة ده كو إيجو marka diinteena islaamka macaana ilaahay nagu deeqay inaan ka shaqeyno wal in laga shaqeeyo diintu istaahilaysa war ma istaahisho ya soo istaahili mayso waana ka shaqeyna markaas marka dhageysta diineed looma baahna shaqaale diineed baa loo baahan yahay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam shaqaale diineed buu ahaa asxaabtiisu shaqaale diineed bay ahaayeen taabiciintu shaqaale diineed bay ahaayeen rag iyo dumar ummadani diin bay u shaqeynaysay diin waa u dhinteen qiyaamahana diin bay la soo baxayaan iyagu diin diinta agtooda qiimo lahayd لأنه waxay garteen diintan qiimaha la qofku haduu qaato inuu qiimo u yeelan haduu qofku diin qaadan waayeen qiimo ma la ogow waxa qiimaha ku yeelaysa waa diin waxa ilaahay kugu jeclaanaya waa diin waxa samada lagaaga jeclaanaya waa diin waxa nolosha adduunyada kuuga hagaagaysa waa diin waxa qabrigaad ku badbaadaysa waa diin waxa qiyaamaad ku nabadgali waa diin waxa jidka saraad ku mari waa diin waxa janno inaad gasho sabab u noqonay waa diin waxa naar lagaga badbaadana waa diin diin maxay tahay marka diinta ilaahay uu doonayna waa diinu saxaaba أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الزمن كودي نولشودا كموقتيبا إلهي دونيا تا إن لا غادا marka lagu dadaalaya wax kala maaha sideen u gaadhnaa diinta raggaasi ay adduunka ka qaateen sideen uga qaadanaa inaguna diin tooda lamid ah taas marka culimadu ay leeyihiin waa in qofka muslimku diintan waa in laga shaqeeyo oo aan culimada kaliya lagu dayniyo macallimiinta kaliya lagu dayne muslim kasto shahaadanayo diinta xilba ka saar hada diinta qaadateedna wadantaada ku shukri nicmada ilaahay ku siiyay faman shakara fa inma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun kareem waliba diintaas adaa u baahan ogow ilaahay hadduu doono inuu ummad diin ku nooleeyo quraanka la inoogu sheegay shimbir hudhud la dhaho
oo zamankii nabi Suleymaan adduunka joogay wadan dhan mujtamac iyo dawlad dhan oo wadan dhan ku dhex nool sabab wuxuu noqday shimbirkaasi ummadda inay soo islaamto qawmu saba في زمن سليمان عليه السلام شمبر قاسبا ليدي جنود النبي سليمان بو كمدها وقوان عجيب شمبر كا إلهي كو أبوري وحيوان كبال ليدي علمك حيوان كو أقوانته ويلا دشان هل كبني آدم كنا أقوانته أي برتانة جامعة دوغا صوبحان بني آدم كو جهل بيلا دشان qaabka aqalada loo dhisay ma naqaan waan baranaa qaabka wax loo daweeyo ma naqaan waan baranaa laakiin xayawaanku baa leeyahay aqoonta ayagu way la dhashaan qaabka aqalka u dhisanayeen way la dhashaan qaabka ma aragtaanay ay isku daweynayeen cilmiga way la dhashaan lidaalika waxa la shimbirkaasi hudhud waxa uu yaqaanaa dhulka intuu eego meesha biyuhu ay ka dhow yihiin buu sheegay nabi Suleymaan baa leeyahay فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين واك قرآن إلهي نوغو شيغي لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين قرآن إلهي نوغو شيغي في سورة النمل سليمان عليه السلام جنوديسي shimbiraha ayuu amri jiray oo cafaarida la socon jirtay oo xayawaanka la socon jiray marka maadaama junuudda nabi Suleymaan ay badan tahay meesha biyuhu ay ka dhow yihiin shimbirkaabu weydiin jiray baa leeydi dadna markuu yiraahdo halkaas biyo inta u jiraan inta soo meter dadna markaas shimbirkaas waxa uu Suleymaan amri jiray jinka iyo shayaatiinta iyo cafaarida marka bay qodayeen daqiiqad ilbiriqsi gudaheed ay markaas soo saarayeen baa leeydi biyaha وصلي يا رسولك لأن النبي سليمان عليه السلام مركا أواي مركا شمبركي بواي وحول الله مركا أواي وحول محا شمبركا ما أنتو كم مغايا وأوعر عارته وهنجبي إن يركد مركا شمبركي با يمدي با الليلي مركا النبي سليمان كويري وحبا أنيق هاي عارن بوكيد هني هنجبين war adigu aanad soo koobi karteen ayaan soo koobo waxaan ka yimid ardu sabع waa degmo ku taala Yaman dhexdeeda ku taala wadanka aan tagayna boqoradu waxay ahayd gabadh bay ahayd iyadaas wadankaas waa wadan Ilaahay barwaaqo dhinac walba uu ka dhigay laakiin dadka loo barwaaqeeyay waxaan la kulmay buu yiri iyadii qoomkeedu waxay caabudeen cadceed markay soo baxdo Ilaahay sokadii cadceed u sujuudayeen buu yiri ayuu sujuudayeen cadceed u sujuudayeen لأن مركا هلوم مجر قصده ويدارته تفسير كأي علماء هذا وشرحانه warqad buu ka qaaday marka risaalad buu nabi Suleymaan ka qaaday risaaladii buu qaaday Balqiis buu geeyay Balqiis iyo qoomkeedii nabi Suleymaan bay u yimaadeen inay diinta islaamka soo gasho gabadha boqorada iyo qoomkeedu waxa sabab u noqday waa shimbir shimbirku aqli ma leh mukallaf maaha oo risaalada isaga laguma kallifin hatta cibaada laguma kallifin baa ilaahay ba abuuray laakiin maadaama ilaahay abuuray azza wa jalla oo nabi Suleymaan suxbad u lahaa waxay yaqaanaan iimaan al-fitr bay leeyihiin waxay garanayaan xayawaanka oo dhan cibaadada ilaahay kaliya baa Allah ay qaa cid kale oo cibaado mutaysatay caalamka ma jirto dadna marka qisadaas waxa laga waramay fi suurata an-naml ba ilaahay kaga waramay maxaa la inoogu sheegayaa waa shimbirka maxaa loo adeegsaday ummadan inuu islaamnimadooda sabab u noqdo waxa la ina tusinayaa ilaahay jalla wa ala inuu ilaahay risaaladan oo caalamka gaarsiiyo ya ummata muhammad inni ma baahnin weeyaan haddaan doona khalqiga inaan hadayna ba ilaahay leeyahay waxba nagu qaadan meesha anaga soo hadeyn karayna marka inaan داينا دين تقشقنا كل جن ديار منا إن شاء الله هذا أمريكا عقلنا إلهي بنسيي دين تينا كشقنا ودن يودا صو ديار منا إن شاء الله